kulankan ay maanta isugu yimaadeen dhalinyarada beesha Cabdi Koomid ee ku nool gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana uu ahaa mid ay uga hadlayeen isla markaana ay ku dalbanayaan xuquuqda beesha ay lahayd oo ay sheegeen inay boobeen beelo kale. dhalinyarada kulanka soo qayb gashay ayaa sheegay inay maqan tahay xuquuqda beesha Cabdi Koomid ay ku lahayd dowladda dhexe iyo maamulada ka jira dalka, taas oo ay sheegeen inay qaateen beelo kale oo aan metelin beeshooda. qaar ka mid ah dhalinyarada kulanka hadashay ayaa ugu baaqay dowladda iyo ogaaska beesha Daarood inay soo farageliyaan boobka lagu hayo beesha Cabdi Koomid isla markaana ay u soo celiyaan xuquuqda ka maqan ay ku lahaayeen qaabka wad qaybsiga beelaha ay ku dhisan tahay dowladda federaalka iyo maamulada ka jira dalka. waxaana hadaladooda ka mid ahaa waxaan u diraynaa in dulmigaas iyo cadaalad darrada iyo wad qaybsiga dad kaliya ay usadeen inay wax ka qabtaan, annagoo ka rajaynayno inay wax ka bedeli doonaan. sababtoo ah nagu sii dhiirigelinaysa inaanu maanta halka looga soo gudbino baaqas. madaxweynehena sidaa loo ognahayba wuxuu ku soo galay ololihiisa doorashada in cid kasta ay heli doonto cadaaladdeeda. cadaalad darro markay jirto musuqmaasuqii iyo wax kasta oo dhanba wuu jiraya. wuxuu qodob dastuuriya uu qabaa in beel kasta ay ku yeelato matalaad dowladda dhexe federaalka, ha ahaato baarlamaan, ha ahaato golo wasiiro, ha ahaato waxaa safiiro. intuba way ka maqan yihiin beesha Cabdi Koomid, waxaana si cad qaatay beesha ay walaalaha yihiin ee Absamo Koomid. waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaad madaxda dowladda federaalka aanu ka codsanaynaa arrintaas inay soo farageliyaan kana hadlaan waxna ka qabtaan. cabashadaas oo ay qabto beelweynta Cabdi Koomid ayna u qabto dhammaan Soomaali weyn, dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo dhammaan cid kasta oo magaranaysa Soomaali oo wax garanaysa. waxay tahay cabashadaasi Soomaaliya waan ognahay hadda nidaamka ay wax ku qaybsatay ama ay ku joogto ama ay ku socoto inaanan maanta wax matalaada ku lahayn dowladda federaalka noocay noqotaba iyo maamul goboleedyada dhammaan. taas waa taas. taada kale aniga waxaan doonayaa inaan baaq u diro dhammaan waxgaradka uwaasiyad oo uu ugu horeeyo uwaaska beesha Daarood boqor Burhaan boqor Muuse. waxaan ka codsanaynaa oo si dhow iyo si dheerba uga codsanaynaa cadaalad darradaas aan geed loogu soo banin ee iska cad inuu soo farageliyo kana jawaabo baaqa aan dirayno. hadda ka horna aan dirnay, haddana aan dirayno, welina aan sii diri doono. waxay beeshu waxa weeyaan ay xaqiraad cad ku arag oo kala hor yimid beesha Absamo gaar ahaan beesha Ogaadeen, taasoo waxa weeyaan ay ugu dambeysay dhacdooyin waxa weeyaan istaba joog oo hadda dhacay. waxa weeyaan waxaan halkan uga sheegayaa beesha Ogaadeen ama haddaan hada guud ahaan beesha Absamo in waxa weeyaan cadaalad darrada annagoo ah beesha Cabdi Koomid oo ah walaalahood in ay la yimaadaan wax qayb iyo tanaasub, isla markaana ay waxa weeyaan ay hoos fiiriyaan dhibaatooyinka iyo waxyaalaha waxa weeyaan ka dhex jira beesha gudaheeda. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maamulada ka jira dalka ayaa ah kuwo ku dhisan qaabka awood qaybsiga beelaha Soomaalida, waxaana inta badan ay beelaha cabasho ka muujiyaan marka ay timaado wax qaybsiga oo ay ka dhex arki waayaan xubno matala beeshaasi.